سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع السراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع السراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقاد يا إخوتي بعدكم لا يراد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته المرأة المسلمة موضوعا كسابسا إنسانكو رب سبحانه وتعالى دين توسودتشي مسلم كاهي وحيرو إلهي كلا صاعي مويان اسكو سبا لولا هضيا بني آدم كان أدوات كيسا اسبدلي بني آدم نمديسو انت بدن اسمه بدشو gabadha muslimadda ah maxaa laga rabaa maxay se qaban kartaa duruufta nololeed cusub hadda joogtaa maxay u saamaxaysaa ama se maxay u ogoshahay ugu horeyn qof kastoo muslima wadiifatuhu al-uula ama shaqadiisa koowaad وربي إنه عابده سبحانه وتعالى حق عبادته نبي عليه الصلاة والسلام وحصر راعي معاذ بن جبل والضمير نبي فوشنا الله صفولي سوى نبي محمد والرسول كيا ومد مدح ديدية تواضع عيسى الضمير بوسك فوشنا dameerkana waliba kalima fuulaynine qof labaad baa la fuulayay dameer laba qof wada saaran tahay Muaad ibn Jabal wuxuu weydiiyay nabiga kaleey salaatu wasalaam Muaad u yeedhay ya Muaad wuxuu yiri war Muaadow Muaad uu jawaabay nabiga kaleey salaatu wasalaam isagoo labayka leh nabigu ka aamusay haddana waxba kuma odhanin عبار مركي اللي السعودية بهدنا مركلا وياري معاذو وجوابي وحب النبي يقول مشي عليه الصلاة والسلام عبار بهدنا للسعودية عبار مركي اللي السعودية مرصد حاد النبي يقول الله اللي عليه الصلاة والسلام يا معاذ كويلي يا معاذ بن جبل لبيك بويلي واستعديك يا رسول الله سؤالها أنه حين نوران كرنا وحلقة فائدية كوع العلنت النبي وكوع العليم معادن وسفي عنه لقيسته إن أنا ورك النبي قلنا فين سقوا مشغول صن أما وحكى لك فكرية سقوا ودقاءه السلة لو النبي محوكو شيء ورك كان الله شيء وحكوا للنبي عليه الصلاة والسلام معادوا حق إلهي أدومه سكولا يما تغانا إلهي حقوق ديس وأدوما كولا يما تغانا الله ورسوله أعلم بوجوابه اللي الرسول باقرا لما تنوح النبي وحيد عليه الصلاة والسلام وإن ربي كلي عابدان وأنا يعدنا وشريك يلين قاعدة سوى قاعدة عامة وحق الله على العباد ورب سبحانه وتعالى أدومها حق وكليه
ilaaha ku nooleeyey ee ku arsaaqay ee ku abuuray ee ku caafimaadiyey ee ku wanaajiyey wuxuu xaq u leeyahay inaad ku tidhaahdo thanks rabba waad mahadsantay mahadintiisuna waa inaanad wixii uu nimco ku siiyey isaga aad ku caabudo inaad isaga kaga hor imanin wixii uu ku siiyey waa shay ay wadaagaan rag iyo dumarba qof kastoo muslimi marka alwaajibu alawal gabadha muslimadda ah saaran ee ninka muslimka ah saaran ee ilmaha yara muslimka ah saaran ee qofka weyne gaboobe muslimka ah saaran waa maxay waa inuu rabbigii caabudo cibaadadu xaq u leeyahay haweeneyda muslimadda ah waajibaadka kale saaran waxaa horeeya waajibka qoyska in badan baa malaa lagu celceliya xaqu sawj uu ku leeyahay gabadha laakiin taa ka hadli maayo bulshadu laba qaybood bay ka koobantay rag iyo dumar casriga aynu hadda joogno waxaa maqashaan wax la yidhaahdo haweentii waa la shaqo tiray ama waa la dulmiyey marka la yidhahdo dulmiga haweenka lagu hayaa waa maxay wuxuu leeyahay 4 gidaar dhexdood baa lagu xidha haweenaydii kama qayb qaadanayso horumarinta waddanka kama qayb qaadanayso dhaqaalaha samayntiisii kama qayb qaadanayso siyaasadatan kama qayb qaadanayso ثقافة عالم كأنه ما أنت تشوقنا تعالى واقع ثقافة سوحي شيء يسا رجع يضمر كأنه الله ما ورجع واحد ظلمية مركا ضمر كأنه يسكر عيان سيدا قرأ يسكر عين كرانا ومحي وما لها قامض وأيكسر بحان يضمر كأنه تقولها oo ah baarlamaanada iyo madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaare talada ummadda inay gacanta ku dhigaan markaas bay xuquuqdooda dhacsan karayaan haddii kale waxaad rabtaan gabadhu inay madbaxa iyo sariirta ka dhaxayso waa sida la rabo in loo sawiro ima inay wax kariso madbax ku jirto haddii kalena inay qolka hurdada joogto gaar ahaan dadkiina muslimiinta intaasaa la rabtaan fama waajib almar'a almuslima baynu isweydiinaynaa althaqaafa almucaasira maanta nooli saasay u fakeraysaa waxaanay u aragtaa inay dulmi tahay dumarka la dulmiyey waa maxay waajibka gabadha muslimadda ee tijaaha ka saaran ama meeshan ka saaran umamku waxa ay ka fakerayaan ummadda horumarinteeda صحيح كما دولة النظام كسيستم كوحبر الشذا وحول دم وحول لسين هاي إن بني آدم كالله هرو مريو سواشي سويدين تلي وحويان وحله باه قبضوا هداي قيب تنكالك قيب قادته وبشر وحواق غبان كرتا حنا واسو كردين كرتا لكن ما فائدة بالشدة وجرته مسوي وما جرته ساشن سويديننا وحويان إن بني آدم الله صار قف جهد يا شقة وقبنا يا برودكت كاس وحكرنا شيء نقض قف بني آدم يانو نقض الضيورات أما تانجي أما كمبيوتر أما مدفع إيما بالشدة والرعب إيما سفايدة بدن يعني الصورات الصيدة اللورد جاية عقل يا بني آدم كوا ماشى وحلقة تصيه waayo kuwan dhagax caabudayaba si uunba wax loogu sheegayo la yidhi meesha ba wax ka dambeeyana ku jiraan aqliga bini'aadamku sida loo tawjiihiyo ma dhabba marka gabadha guriga joogta inay tahay gabadhan bulshada waxba u haynin waxayntu ma marka computer la sameeyo ama gaadhi la sameeyo ama dayuurad la sameeyaba soo marka bini'aadam la dhalay ee la soo saaray la koriyay la keeno bulshada iyama u faa'iido badan waxa la hubaa inta aynu arkayno dunida korkeeda waxaan saaranayno la dhaqmayno bini'aadamka ugu qaalisan qofka bini'aadam dhalay ee koriyay ee keenay bulshada ku soo daray
iyo qofka bulshada dayuurad u sameeyey ama taangii u sameeyey gaadhi iyama bulshada wax u qabtay labaduba waxbay qabteen se iyama roon waxaan odhan karnaa waxa roon warshadda bini aadamka soo saartaa ka roon warshadda biraha soo saarta warshadda bini aadamka soo saartaa ka roon warshadda dayuuradaha soo saarta ciddii isweydaarisay ee tidhi rag iyo dumarba taangiga ha sameeyaan rag iyo dumarba dayuuradaha ha sameeyaan rag iyo dumarba kombiyuutarada ha sameeyaan in badanoo ka mida way dhacday labaduba inay dayuurad iyo kombiyuutar iyo taangiba soo saareen dumarna waa sameeyeen ragna waa sameeyeen laakiin bulshadoodii way khasaartay maanta waxay qorayaan dadayooga reer galbeedka oo ixsaa'iyaata ma aha sheeko iyo wadaad wuxuu sheegay maaha waa ixsaa'iyaadku waa statistics waa tiro koobiyo xaqiiqo oo tilmaamaya yurub way sii yaraanaysaa ama ninka cadi wuu sii yaraanayaa wuu sii gaboobayaa wuu waxtar yaraanayaa bay leeyihin dagaalkii labaad ee dunida wixii ay kaga baxeen Germany iyo Faransiisku tiradii waddanku ahaa tiraduu iminka yahayba ka yar ummadan 50 sano korba u korin ka waran hoos u socota waxay leeyihiin wadannada inta xool la sameeyo xoolku waa waxan yare carruurta lagu rido dharabtan carruurta la saaro inta xool la sameeyo iyo inta taabuut la sameeyo taabuutku waa meydku markuu dhinto sanduuqan yar ay ku ridaan sanduuqa meydka lagu rido iyo sanduuqa yar ee ilmaha dhashay lagu rido yurub waxaa badan sanduuqa meydka lagu rido yacni dadka dhintaa waxay ka badan yihiin maxay dadka dhasha waddankan aad joogtaan haddii waxa dhasha iyo waxa dhintaa badan yihiin tirada dadku maxay noqonaysaa markaa ta wayna yaraataa ilaa inta kusoo kordhaysa waxa ka badan mar kastaba inta dhimanaysa taa macnaheedu waxa weeyaan waa inay yaraataa waxay leeyihiin da'dii shaqada lagu qabanayay dadka waaweyn baa waxay ka badan yihiin dadka yaryar wakhti dhow haddii la sii socdanaba waxay leeyihiin dadka benshanka qaatay aan shaqadaba qaban karin ee fadhiya ayaa waxay ka badan doonaan dadka cashuurta bixiya ee wax qabanaya taa macnaheedu waxa weeyaan waa ummad gaboobaysa qof gabooba idinku arki jirteen miyaa maqasheen ummad dhanoo gaboobaysa waxay leeyihiin ninka cadi wuxuu ku sii socdaa vanishing spices bay yidhaahdaan xayawaanada munqaridka ee dhammaan ayuu ka mid yihi ee intaanu dabar go-in hala qabta bay leeyihin in gabadhu dayuurad duuliso oo kombiyuutar samayso oo taangi samayso oo waxa laga dhaxla inay bulshadu marato oo gabowdo oo yaraataa laga dhaxlay theory maaha aan leeyahay waa aragti muslimku qabee waxaan leeyahay waa markay kuwii rumaysnaa practically tijaabiyeen wixii ka soo baxay maanta wax aqoonkoodii iyo dowladahoodii waxay leeyihiin dadka haweenkeenna aan ku qancinno inan walba ayaydeed intay dhali jirta inay dhasho hooyadeed maaha hooyadeed waa qoladii dagaalka gashay ee siyaasadda gashay marka waxay leeyihiin inantan ayaydeed intii ay dhali jirtay inay dhasho aan ku qancinno waa ilaa waa marhanaynaa bay leeyihin see loogu qancin karaa feminist group baa samaysmay jaamacadaha theoriyadan lagu dhigayaa tviyadii baa ka warramaya jaraa'idkii baa ka warramaya dowladihii waxay xoog iyo xoolo lahaayeen waxay isugu geeyeen in wax la dhalo waayo waxay leeyihin yurub maanta laba qof oo kastoo isqabaa labadii bedeli lahaa ma dhalaan waddanka dhashiisa iyo guryihiisa marka laysu qaybiya ama dadkiisa waddan qura ayaa dhala 2.1 soo gaadha yacni goroth kama jire uu ka jira inuu halkiisa joogi karo waddankaasina bay yidhahdeen in kasta uu yurub ku yaallo waa muslim waa albaniya yurub oo dhammi waa 1.3 1.4 1.9 yacni labadii qof labadii bedeli lahaa ma dhalaan dowladu go-aana bay qaateen markaa gabadha dhasha maalan anigu waddankan joogi jiray gabadha dhasha haddaad ilmo dhasho inaad ilmo dhashay baad $5,000 leedahay
oo abaalmarinoo dowladdu ku siinaysa haddaad ilmo dhasho waxaad leedahay baa la leeyahay sanad fasaxa oo aad mushaharkaagii 80% qaadanayso waayo ilmahaanu rabnaa inaad koro bay leeyihiin oo uu bulshada ka mid noqdo marka si aad ilmaha u koriso aad bulshada uga mid noqotid mushaharkii aad qaadan jirtay meel kastaba ka shaqeeyo 80% ha kuu socdo waxay dhahay ilma hadduu dhasho si loo dhiirigeliyo odayga laftiisu bil fasax u baahan yahay bay yidhaahdeen odaygaan waxba dhalin isagu isna wuxuu u baahan yahay si uu caawiyo bay leeyihiin islaanta ilmaha dhashay ee bulshada wax ku soo kordhisay waxay tilmaamayaan yacni mantaqa iyagu yaqaan siday u fakari jireen ee ahayd in maal wax lagu horumariyo la wado ayaa la rabaa in la dhiirigeliyo dowladihii iyo nidaamkii waxay leeyihiin ha la guursado waxa la dhalo laakiin dadkii ma rabaan su-aasha markaan idiin sheegaya waxay tahay ama idin weydiinayaa dadkii tajribeeyey jawaabtan bay hayaan innagana maanta thaqaafadii baa dib laynoogu akhrinaya waxaa la rabaa inaynu la mid noqonno iyagu markay dhali waayeen waddannadoodii waxay leeyihin way burburayaan sidaa awgeed aan qaxoonti qaadanno qaxoontiga malilaahi baa loo qaataaba u malaynaysaan maxay u aqbalayaan dadkan waa dad dhallinyaro ah oo xooggan oo shaqayn kara oo wax dhali kara oo thaqaafadda dhalmada ah rumaysan oo bulshada wax ku soo korin kara halun bay ka cabsi qabaan dadkani armay culture-keenna beddelaan ha lagu dadaalo sidii ama loo gaalaysin ilaa ama fikradda loo qaadsin ilaa ama caynkan waa in xaggaa loo dadaalaa laakiin soo dayntooda waa in la soo daaya waddan waliba intii uu baahanya markuu qaatana wuu joojiyaa waxa la dhahaa waddan hebel sharci lagama bixiyo waddan kalaa laga bixiya ka kalaa dadku u cararaa kaasi intii uu qaadanayay markuu gaadhaa buu joojiyaa kii horaa fura waayo dadkiisi weli waxba dhalayaanoo dadka kan lilaahi cidi uma aqbasho iyo waa bini aadame ha noolaadaan hadday ka rabaan bini aadam inay nooleeyaan may halkiisaba ku siiyaan maxay u qaxinayaan dee la rabo inuu noolaado maa waddanku joogo la horumariyo maxaa loo boobayaa loo dhacayaa loo dilayaa loo xumaynaya dii la rabo inuu noolaado suuriya ma suuriya iyadoo joogta wax loo qabto maxaa loo odhanaya qaxoontigeedaynu aqbalayna qaadanayna waxaan leenahay waajibka labaad ama hawsha labaadee haweenka muslimadda laga rabaa waxa weeyaan jiil ilaahay yaqaanoo muslima inay soo kordhiso nin ma soo kordhin karo cid kaloo shaqadan qaban kartaana ma jirto cidda qudhay qaban karta ee ilaahay ugu talagalay waa haweenka shaqada gabadha muslimadda ee labaad markaa waxay tahay inay wax dhasho macnaheedu waxa weeyaan inay noqoto warshaddii bini aadamka soo saaraysay waa ilaa bini aadamku uu dabar go-aya warshadii basharka haddii warshad taangiya la haystiyo kombyuutaradu bini aadam ma noqdaan dayuuraduna bini aadam ma noqdaan waxaa loo baahan yahay bini aadam in la keeno bini aadamna qaabka qura uu ku yimaada waa qaabka kan shaqada labaadee laga rabaa waxa weeyaan inay koriso waa hawl adag in la dhalaase waa hawl fudud marka labadaa la si dhinac dhigo dhalista iyo korinta adag dhalistu adiga juhdi kaama rabto ee ilaahay baa qofkan meesha ku abuuray oo wuxuu cunayay meesha ugu geeya oo laakiin inaad korisaa caqli iyo tale iyo mutaabaca iyo xoog bay kaa rabtaa aday kaa rabtaa dunida maanta la joogo waxay ka cabanayaan waxa la yidhaha child delinquency waa junuuxi اlatfaal waa carruurta dembiilayaasha ah qaanuunka reer galbeedku wuxuu sheegaya qofku 18 jir markuu gaadho ayaa xabsi la geyn karaa la xidhi karaa waa caynkan 15 jiro 16 jiro 17 jiro dunidii waalay see loo gelaya waa kuwan imanka ogolaaday juvenile prisons xabsiyada muraahaqiinta 16 hadduu gaadhaha la xidhay bay leeyihin laakiin xabsi gaaro aan xabsiga weyn hayn ee u gaaraha lagu xidho carruurtii way sii xumaanaysaa waxay leeyihin problemku waa maxay mushkiladda koowaad waxay leeyihiin
carruurtani imaa inay ku soo kortay meel dadka lagu koriyo maalan haddii la idhaha dumarku ha dhalaan laakiin markay dhasho baan haagaha geyso ama kindergarten meelahan carruurta lagu hayo dhulka iyanaad shaqo tagto waxay leeyiin kuwii meelaha lagu soo koriyey baa ugu badan dunuubtan dadka geystay kuwii ku soo koray baa ugu badan bay leeyiin guri aan labada waalid joogin taa macnaheedu waxa weeyaan haddii la rabo bulsho hagaagsan in la soo saaro ilmuhu laba waalidoo koriya waa inuu helaa labada waalid inaad 40 carruura lagu yidhaahdo hay oo subaxii intaad shaqo tagto 40 ciyaala soo dumar uun maaha waxaynu carruurta la rabno gabadh shaqaalada aan qorro 40 ciyaal aan u dhiibno inta laga soo rawaxaya ha hayso taasi ma bedeli kartaa la leeyahay hooyada ilmuhu wuxuu ka barto kama barto qofka dumar ee 40 ka hayse aan dhalin de 40 aanay dhalin shaqaale ku mushahar ku qaadata kama soo baxo naxariistu hooyadii ka hela kama helo koristu hooyadii ka hela kama helo danaynta uu hooyadii ka hela ay danaynaysa kama helo ma noqdo ba ilaa psychologically qofkii la rabay idan waxaan leenahay hawsha labaad ee bulshada muslimka ah la rabo inay qabato gabadha muslimadii waxa weeyaan inay si gaara u koriso ilmaheeda ilma kale ku darkan iyo waxaasi waa tillig waa waxyaabo dheeraad oo kale laakiin asalku waa inuu ilmuhu ku koro guriga aabihii iyo hooyadii asalku waa inuu laba waalid koriyaan asalku waa in la tarbiyeeyo la rabeeyo gurigoodu ilmuhu ku bartaa cadaaladda iyo tala wadaagga iyo akhlaaqda fiican iyo naxariista waa haddii ay waalidku yihiin waalid soo jeeda ilmaha yar waxaa lagu rabeeyaa maxay soomaalidu inta badan inuu wax cunaa unbaa muhiimadda ah waxa kale wax weyn ma moodaan ilmuhu agtaada ayuu ku gaajooninu hooyadu inta badan taasi ka fakartaa aabbuhuna wuxuu u soo shaqaynayaa un ilmahaasi yuu gaajoonin haddii hooyada ama aabbaha la yidhaha ilmaha wuu gaajooday waa naxayaan waa warwarayaan laakiin waxaa ka muhiimsan diinta iyo dhaqanka uu qaadanayo qaabka uu ummadda hadhow ula dhaqmayo haddaad cadaalad rabto gurigu ku baran karaa innagu cadaaladeenna waxa weeyaan oday soomaaliyeed baa la yidhaha carruurtaada ayaad u jecesho kii buka kii maqan buu yidhi kolba ka maqan baan ugu naxdin badnay kolba ka xanuunsanaya baan ugu jilicsanay kolba kii yar buu yidhi anigu saan u kala jeclay waa saddexdan un buu leeyahy kaw yar baan marba u jeclahay marba ka maqan un baan ugu warwar badnay marba ka xanuunsanaya laakiin sida rasmigii waxa weeyaan in loo cadaalad sameeyo ilmaha ka weyn iyo ka yar iyo ku dhexaba in naxariista la baro in waxa tarbiyada loo yaqaano dhan ilmuhu gurigu ka qaataa waxaan leenahay marka shayga labaad ee gabadha muslimadda laga rabaa bacda cibaadat illaahi subxaanahu wa tacaala waa inay jiil cusub ama dhiig cusub ummadda ku soo kordhiso si ummadda isu beddesho oo horumar uu gaadhi karo waa in jiil cusub isoo koraa maanta thaqaafada galbeedka ka socotaa labadan shay aan sheegayba waa cagsigeeda dadka diin iyo caqiide cidina kuma tarbiyayso way sii lumayaan dhasha dambe iyo siday tahayna waxaa la isku dayay inay dowladdu dadka yeelato oo ilmaha ka fakerto oo cid walba ka fakerto laakiin dowladdii waalid noqon weyde carruurna dhali kari weyde dowladaha sistamada ka dejisani waa sistamo aada ugu eexaynaya carruurta iyo korintooda iyo waxa kan laakiin bedeli kari waaye gurigii hooyiyo aabba noqon waaye iyadoo ay lacag badan ku bixinayaan oo wax badan eegayaan waa hooyiyo aabba noqon kari waaye walidalika ayuha alikhwa bii'a mulawatha baa ku jirtaan yacni la sumeeyey oo tv-gu iyo jariidaddu iyo siyaasigu iyo wax waliba waxay sheegayaan gabadhan madbaha ha laga soo saaro gabadhana afarta derbi ku xidheen ha ka soo baxdo gabadhan xuquuqdeedii baa ka maqanay ha raadsato gabadhu xaqa ay doonayso markii la tajribeeyey waxay isweydiiyeen gabadhu xaqeedii ma heshay
mise may helin iminka guruubbaa jira yurub dib u doodaya oo haweena oo ku doodaya gabadhu gurigii ha ku noqoto ninkana ha la siiya bay leeyihin double wage ama family wage waxay ku tilmaamaan mushaharka ninkana ha loo kordhiyo reerkaa ku filanka intii la odhan lahaa labaduba ha shaqo tagaan midna carruurta ha haya midna ha shaqo tago laakiin kan shaqaynaya wax reer ku filan ha la siiya bay leeyihin maxay sidaa u leeyihin waxay leeyihin gabadhii baa la dulmiyey oo see loo dulmiyey sababtan wasiiradda noqotay madaxweynaha noqotay ee baankaradda noqotay ee khabiiradda ee brofesaradda ee xaggan joogta waxay idhahdeen gabadha dulmi baa ku dhacayoo laba goor midunbay dulmantay bay idhahdeen imaa inay hooyanimadii iyo xanaankii waalidnimoba weydo waxbaba may guursan ama waxbaba may dhalin madhalays baa laga dhigay intii ay ragga la baratamaysay wakhtigiiba dhaaftay guurkaba waxay eegayso ay lahayd haddaan carruuriya waxaan dhalo dee waan hadhaya xisbiga meel hoosaan ku dhacaya si aan xisbiga u hogaamin karo dowladda u hogaamin karo waa inaanay guri iyo carruuriya waxaan ku mashquulin dee waa inay xagga hore tagtay madaxweyne noqotay siyaasiyad noqotay waxaan noqotay laakiin waxay leeyihin laba dulmi bay qabtaa imaa bay yidhaahdaan inay hooyanimadii iyo waalidnimadii iyo carruurtii waa fitra ilaahay ku abuuray ay weydo gobla noqotay ama bay yidhaahdeen inay laba shaqo qabato dumarka galbeedka joogaa bay dhahaan inta wax dhalay laba shaqay qabtaan bay dhahaan sida ninkay 8 saacadood shaqo tagaan hadhow guriga marka la soo noqdana 8 kalun bay shaqaysaa bay dhahaan ninkuna uu seexdaa idan gabadha tan laba shaqoon baa la geliyay baa la leeyahay waxba looma kordhin 8 saacadood oo ay xafiiskii ama wasiirad ahayd ama caynkan ahayd ama baan ka shaqaynaysay ama waxaan ka shaqaynaysay yurub dee halkan dad masaakiinaaba joogo lagu shaqaystay cid lagu shaqaystaana ma jirto dee qof waliba gurigiisa markuu soo raaco isagaa dheriga bilaaba cid kaasii horraysaa ma jirto ama wasiir noqo ama baankar ahaw ama joog nin waliba isagaa dherigiisa bilaaba marka la soo noqdana bay leeyihin haddii midh ama laba la dhalay gabadha kuwan xafaayadaha ka bedel kori raashinka kari shaqadii gurigana iyada qabataa marka maxaa loo kordhiyey bay leeyihin laba shaqaa loo diray gabadhuna 16 saacadood bay shaqaysaa bay markaa leeyihin 8 guriga iyo 8 dabadda ninkuna 8 saacadood buu shaqeeyaa keeba xaq la siiyey keeba se la dulmiyey ninkunba guriga kharashkiisii laga yareeyey bay leeyihin sida tan ninkaa ku faa'iiday baa la leeyahay gabadhu kubay faa'iiday labaduba markay shaqo tageen dabeetana ay guursatay ninkaa wax kororhsaday oo ah xaggana gabadhnimadii iyo carruurtiibuu ku haystaa xaggana lacagtiina labadooduba way soo wada shaqaynayaan marka ninkaa wax kororhsaday bay leeyihin weli gabadhaa dulman saa daraaddeed gruubkan dumarkii waxay ku doodayaan gabadhu waxaa dulmiga ay ka bixi karaysaa oo qora markay gurigeeda joogto ee ninkuna wixii dabadeed soo qabanaya iyaduna wixii gudeed ay qabanayso markaasoo qoray dulmiga ka baxday bay leeyihin amaa dabaddana ka wada shaqeeya gudahana keligaba ka shaqaynaya xataa ninku hadduu yidhaha waan kala shaqaynaya ma shaqayn garanayo ama ma qabanayo wixii loo baahnaa mar kastaba ilaahay tan gabadha tan ayuu takhasus u siiyey inay ilmo korin karto wadi karto hagaajin karto oo u nixi karto hooyadu yani fitrada ay ku kala gedisay waxay dhahaa maskaxda hooyadu multi services bay u samaysantay computerada waa tan waxaa lagu kala wanaajiyaa waa inta shaqee uu isku mar qaban karo computerka hooyadu bay yidhaahdaan guriga markay joogto iyadoo dheriga walaaqaysa ayaa midna dacalka haysta midna ay la hadlaysaa saddexda shaqaba way wada qaban kartaa bay yidhaahdaan ninku bay yidhaahdaan laakiin tarkiizun weeyaan wax qurun buu qabtaa bay leeyihin oo caqligiisu isugu tagaa saddex shaqo mar wada qabta bay yidhahdeen ninka maskaxdiisu marka hadduu dheriga walaaqa bay yidhaahdeen oo ku yara dacalka qabsado uu iska fujinaya war orodoo xaggaa fadhiiso i dhaaf buu leeyihi dherigiisu walaaqanayaa bay leeyihin laba shaqo ma wada qaban kara baa la dhaha waa fitradu ku abuuran yihi waayo waxaa loogu talagalay nolosha dabadeed inuu wax tarkiisiyo oo waxaa qabto hooyadaas se wada qaban karta bay leeyihiin saddex carruura in midna dacalka haysto midna ay saxaro ka beenayso midna ay cunno siinayso saddexdabana ay u dul qaadan karto aabbuhu suurtagal maaha bay leeyihin hadduu mid shaqo ka qabanaya labada kale waynu eriyaa walidaalika ayuha alikhwa bini aadamku wuxuu isku dayey in rag iyo dumarka la isweydaariyo oo dee ilaa xad ragga badh la leeyahy dumarha laga dhigo waa caqliga maanta jooga qaanuunka yurub maanta waxaa la bedelay xeerkii la odhan jiray
maxaa familiya maxaa qoysa yaa usra ah laba nin baa usra noqon kara laba dumara usra noqon kara nin iyo gabadh baa usra noqon waxaas la wadaa waxaan jirin ee la rabo in bini aadamka lagu cayaaro gabadha muslimadda marka waxa leeyahay waajibka labaad ee saaran bacda cibaadati Ilaahi subhanahu wa ta'ala waa inay jiil cusub oo muslim oo bini aadam soo saarto waa waajibuha thani ayaan leenahay waajibka saddexaad aan tilmaami karo ee gabadha muslimadda laga rabaa waxa weeyaan inay diinteeda ka qayb qaadato horumarinteeda waday dacwo tahay hadday khayr la sheega tahay hadday khayr ay barato tahay inay qabato oo diintu waa xil muslimka oo dhan saaran qof kastoo muslima waa xil saaran xilkaana waxaan leenahay inay gudato ayaa loo baahan yahay xilkaas si salbiya iyo si iijaabiyaba waa loo gudan karaa ama si kale u tilmaamo qofka bini aadamkaa bay idhaahdaan waxa ugu badan ee dunida fasahaadiyey bay leeyihiin ee iyagana la fasahaadiyey waa dumar maxaan taa uga jeedaa waxay idhahdaan gabadhu nin kastoo caqli badan hadday u xaydxaydato inay lumiso waa lumin kartaa bay idhahdaan ninkuna baa la yidhahdaa waxa uu ugu jilicsan yahay dunida korkeeda yaalla waa qof dumara qof dumara wax kastoo ka tirsanin nin way soo jeedin karaan axad alculamaa baa wuxuu ii sheegay daraaso qoladan galbeedku ay sameeyeen bay waxay dhahdeen caqliga ninka intibaahiisa waxa ugu weyne soo jeediyaa waa maxay waxay dhahdeen waa xabaasha xabaal hadduu soo maro bay leeyihiin markaaba qofka bini aadamka caqligiisa ama ninku markaaba uu naxaa xabaashu thinking bay ku abuurtaa maskaxdiisa qayb ka mid ah markiiba shaqada bilowda bay dhahay hadduu qof dumara arkana bay leeyihiin markaaba maskaxdiisu intibaah bay samaysaa dadka lumiya waxay ku talagaleen markaas si mujtamaca loo fasahaadin karo in gabadha la fasahaadiyaa waa kuwan samaystay waxaan la yidhahaa design engineerska iyo waxa kan waxaa la isku dayaa gabadh kastaaba halkay u qurux badan tahay in la muujin karo qofka bini aadamkaa jidhkiisu isku wada mid maaha mid baa wejiga u qurux badan mid baa dhex u qurux badan mid baa dhabarka u qurux badan mid baa addimada u qurux badan si ninka ama mujtamaca loo fasaadin karo stylesku waxay ku salaysan yihiin qof kastaaba halkuu u qurux badan yahay inuu bannaanka soo dhigi karo maadaama la ogyahay gabadhu inay nin fasaadin karto tusaale aan idin siiyo iclaanaadka tv-ga ma daawateen xayeysiiska kan soomaalidu professional maaha ee shanta maxaa la yidhaahdaa xawaaladood laystaba dhigo isagu maaha iclaan oo iska uun idaacad nin fadhiisto iska hadlaya professionkan reer galbeed ee ay kaga warramayaan iclaanka waxaan la yidhaha advertisementska boqolkiiba 80 ama 90 advertisementka gabadh baa advertise garaynaysa see u advertise garaynaysa taayiraad arkaysaa la rabo taayirka gabadh qaawanunbaa meesha soo boodayso saad gabadha u arkaysaa uma taayir soo daba soconaya gabadh iyo taayir maxaa ka dhexeeya gaadhaa la xayaysiinayaa sida gaadhigii intaan la keenin gabadh qaawan ama gabadh ordaysa ama gabadh baad arkaysaa kadib baa gaadhi ka soo daba baxaya iyada daaqada laga furaya waa fuulay everything la xayaysiinaya gabadh baa lagu xayaysiiyaa waayo waxay ogyihiin ninka soo jeedintiisa waxa ugu tirada badan le inuu gabadh yahay walidaalika baa gabadha ilaa waxa ugu hooseeya jidhkeeda ay mara ku xidho waa la xayaysiiyaa wuxuu doonaba ha noqdo mara qof dumar ay xidhato aan la xayaysiini ma jiro ayuha alikhwa gabadha muslimadda markaa xilka diimeeda saaran waa inay isasturtaa hadday isasturto mujtamacay islaaxisay weeyaan gabadhu hadday jidhkeeda qura asturato macnaheedu waxa weeyaan mujtamacay islaaxisay hadday jidhkeeda asturato macnaheedu waxa weeyaan risaalatu lxushma bay bulshada dhex wada risaaladda xishoodka ah ninku gabadh qaawan hadduu arko markiiba afku la gelaya ilaa awalba hunguraa ka hayay laakiin gabadh xijaaban hadduu arko xataa hadduu nin dhaqan xun yahay waartani waa xidhxidhanta iska jir buu isleeyahay hore uguma dheerayn karo laakiin gabadhu hadday isa soo qaawiso ama isa soo carfiso ama ay samayso nin iyo mujtamac iyo wax walba way fasaadin kartaa idan waxaa leeyahay xilka gabadha muslimaddaa saaran waxaa ka mid ah inay asturnaato asturnaantu ma aha un inay ilaahay ka baqaysay oo qura
ee waxa weeyaan bulshadaadani ugu jirtaa bulshadaan fasahaadaynin hadday gabadha muslimadii xijaaban tahay iyagu cagsigay u wadaano waa maxay waa in bulshada la fasahaadiyo marka gabadh qaawan iyo gabadh ordaysa iyo gabadh shaqaynaysa wax walba qof dumara la dhinac wada si bulshada inta kale ay u fasahaado iyaduna hadday shaqadan bilowdo iyana waa fasahaadsantay inta ka soo hadhay mujtamaca nuska kalena waa fasahaadin karaysa haddii la rabo in mujtamacu islaaxo waa inay gabadhu wanaagsanaataa haddii la rabo inuu mujtamacu islaaxo ilmaha soo koraya waa inuu fiicnaadaa haddii labadani ay fiicnaadaan macnaheedu waxa weeyaan bulshadani waxay u socotaa dhanka fiican waa bulsho mustaqbal leh oo la rajaynayo tan macnaheedu ma aha inaan leenahay gabadha muslimadii ama cilmi ma baran karto ama ma shaqayn karto ama bini aadamku duruufo kala gedisan wuu leeyahay laakiin duruufuhu waa nawaadir waxna waa bulshada caamka waxa loogu talagalay waxna waa cid dhib gaari haysataa waxay qabanayso bulshada caamkii qaabkay u noolaanaysa waa inuu qaabkaa noqdaa laakiin waa dhici kartaa qof dumar oo agoon haysata reer aan biilkuba ku filayn ay ku kaliftay ninkiiyo gabadhuba inay shaqo tagaan wax badana waa dhici karaan markaana waxaa laga rabaa hadday qaadato inay shaqo qabatana shaqo xushmo leh oo gabadhnimadeeda ay ku caafimaad qabaysa inay qabato qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa dumar shaqeeyey nabiyullaahi muuse markuu meeshii ka soo baxsaday fircoon iyo kooxdiisii ceel buu yimi laga cabayo laba habloodoo xoolo wata oon xoolahoodii waraabinayn buu yimi iyo dadkii kaleoo ceelka ka cabaya maxaa idinku dhacay buu ku yidhi waxay u sheegeen inaanay ragga ceelkan kula boobin ee ay sugaan inta laga baxayo markay raggan xoolahooda ka dareersadaan ayaan anaguna kuwa iyaga waraabsanaa bay ku yidhaahdeen wuu u waraabiyey gabdhaha kan waxaa kalifay aabbahood baa da-ah cid kaloo walaaloo shaqadan u qabatana ma hayaan therefore iyagay keensatay inay shaqeeyaan way shaqaynayaan markaa xoolahoodiina way wataan waana waraabsanayaan shaqadii la qabanaya iyagaa qabanaya laakiin markay jaanis aragtay nin daacada oo wax u qabtay aabbaheed way u tagtay si ay shaqadan uga baxdo waxay ku tidhi aabbo ninbaa waxaa noo qabtay iigu yeedha buu yidhi nin markuu yimina talay u jeedisa waxay tidhi ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin aabba nimaad shaqaale oo cid aad inooga dhigto ninkan xoogga weyn le ammaanada fiican leh ayaa u roon markaynu naqaano qur-aanku odaygii inuu soo bandhigay inantiisii inuu u guuriyo nebi muuse calaa asaas inuu 8 sano u shaqeeyo hadduu 2 sano ugu dari karana ugu daro qisada waxaan u adeegsanayaa waa gabadh shaqaynaysay waa qof dumar oo shaqo qabanaysay jiilkii saxaabada markay ku noqonno dumar badan baa shaqaynayay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo soconayuu ku soo baxay asmaa binta abi bakar ina abi bakar oo asmaa ah oo waaxid min 10 almubashiriin uu qabo oo dambiil sideetoo ku guratay lafa timireed iyo waxseeta dabeetana neefkii buu u joojiyey uu fuushanayo wuxuu ku yidhi soo fuul way ka xishootay way diiday mar dambana waxay tidhi zubayr baan hinaasihiisii xasuusta waxaan sidhi u haynaa nama nebi maxamed baan ku hinaasayaa buu ku yidhi markaa may la raacin maxaad qaba waxay tidhi waxaan u sameeyaa bay tidhi awrna wuu leeyahay farasna wuu leeyahay awrkiisana lafahan iyo waxaan baan usoo guraa u daqiijiyaa cunaan siiyaa faraskiisana anaa maydho uga shaqeeya bay leedahay waa shaqo dabadeed labaduba shaqada anaa qabta bay leedahay isna wuxuu mashquul ku yahay jihaadkan iyo waxaan kale u wado gabadhu way shaqaysaa ina nebi maxamed baa shaqaynaysay oo nebi maxamed u timi calayhi salaatu wasalaam oo u sheegtay gacmaheedii inay adkaadeen oo weydiisanaysaa ilaahay rasuulkiisa iyo waxaad isiisaa qof khaadimo oo ii shaqeeya bay ku tidhi wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax ka khayr badan kuu sheegaa iyadu khaadimay doon shaqaalay rabtay nebiguna wuxuu ku yidhi wax ka khayr badan kuu sheegaa waa maxay wuxuu yidhi habeenkii markaad seexanayso 33 jeerna subxaan allah dheh 33 jeerna alxamdu lilah dheh 34 jeerna allahu akbar dheh taasaa kaaga khayr badan culamada badh baa yidhaahdaa qofka laazimo wardiga kani maalintiisa nashiid buu noqdaa qof xooggan oo shaqadiisa xataa qabsan kara ayuu noqdaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisii khaadimna kuma darine xoogse buu ku yidhi waxaanu wardigaana wuu baray waxaan uga dan leeyay markaa
gabadh xakiimadii way jirtaa sidii khadiija gabadh deeq badan oo wax bixinaysay way jirtay sidii zaynab intay gacanteeda ku shaqayso wax samayso ayay sadaqadaysanaysay gabadh cilmi badan oo raggu cilmiga u soo doontaa jirtay caaisha cilmi diineedna way taqaanay cilmigii kale waagaa yaalayna way taqaanay dhakhtarad bay ahayd oo cilmiga tibka way taqaanay adiibad bay ahayd oo gabayada iyo adabka luqa alcarabiya way taqaanay waxaasoo dhan inta loo yimaada baa la weydiin jiray oo laga warsan jiray 25 sannadood bay cilmi faafinaysay gabadh masaalixda caamka ee ummadda ka shaqaysaa jirtay asmi waxaynu naqaanaa hijradii wixii ay nebiga iyo abibakar u qabatay calayhi salaatu wasalaam ee daatu nitaaqayn loogu bixiyey gabadh dagaalka ka qayb gashay baa jirtay nasiiba gabadhii la odhan jirtay ghaswat uxud markay dhacday ee muslimiintu ay jabeen dadkii nebiga difaacayay waxaa ka mid ahaa gabadha tan seefteeday sidatay oo nebi maxamed bay difaacaysay ilaa iyo halkan ku dhuftay ibnu qami ah kii nebigana markii dambe soo gaadhay ee koofiyadan madaxa birta kaga dhuftay oo hoos u gashay gabadha tanna nabar halkan buu ku dhuftay oo weyn god baa halkan kaga ooli jiray aseeftu kaas ku dhuftay iyadoo nebi maxamed difaacaysa calayhi salaatu wasalaam haweenku ka mid baa ahaayeen mumaridaat raaca nebi maxamed oo leh ilaahay rasuulkiisa iyo dagaalkaanu kula gelaynaa wuxuu ku yidhi idinka alla idinkuma waajibin idinku jihaadka laa leediine xajkiinna iyo cimradiinna iyo arrimihiinna qabsada buu ku yidhi waxay dhahay ma waa ku raacaynaayo ka bukaanu kuu daaweynaynaa ka nabarku ku dhacaanu qaadaynaa ka biyaa u baahan baanu biyaa siin logisticska waxaa la yidhahdaa ciidanka ayaanu ka adagna bay yidhahdeen haween nabiga raaci jiro logisticska ka qayb geli jiray baa jira yacni marka aan qadiyadda ka warramayo idin leeyahay ra'yiga reer galbeed aan radinayno natiijadiisa tilmaamayno ma lihin gabadhu shaqo kalaba ma qaban karto taa maaha waxaynu wadnaa ee waxa weeyaan bulshada sidoo alla u abuuray subxaanahu wa tacaala ee saliimka ah inay u dhaqanto inaan la dacaayadeen ama la maagin tan wax dhalaysa ilmaha korinaysa shaqadii ugu fiicnayd bay haysaa kama shaqo fiicna inanta injineeradda ee dabaabadda samaysay kama shaqo wanaagsana bulshada dhexdeeda gabadha 4-5 caruura dhashay korinaysa kama shaqo fiicna bulshadana ugama waxtar badna walidaalika waxaan leenahay gabadha muslimadda ah shaqadeeda koowaad ee mucaasirka ee wakhtigan joogtaa waxa weeyaan kow inay rabbigeeda caabudo laba hadday guri leedahay dee ninkeeda inay ateecdo 3 ilmaha ay dhasho inay koriso si fiican u koriso in la koriyaa cilmi u baahan yahay hooyo aqoon leh ilmahay korisay iyo hooyo aan aqoon lahayn ilmahay korisa isku mid noqon maaya waxa laga yaabaa dadku inay yidhahdaan haddaa maxaa wax laga baranaya haddii ilmuhu la korinayo oo ilmaha ma waxaad u haysataa in jahli lagu koriyo lagu beero oo lagu dhalo maaha aqoon gaadhiga lagu sameeyo aqoon ka badan buu u baahan yahay aqoon bini aadam lagu kobciyo lagu koriya inaad qof bini aadama koriso kobcisaa aqoon bay u baahan tahay sida ta injineeradda aqoonta ugu baahan tahay idan huyuumanka inaad barato qofka bini aadamka ah waxaan leenahay markaas ilaahay in la caabudaa waa waxa koowaad ninkeeda inaad adeecdaa waa laba 3 bulshada shaqada ugu weyn ay u haysaa waxa weeyaan inay ilmo dhasho oo koriso oo kobciso 4 waxaan leenahay markaa wixii kale bulshadu 4 diinteeda inay wax ka qabato oo ummadda kale diinta gaadhsiiso daaciya ahaato dacwadeedana ay ugu horrayso risaaladan ay faafinayso ee ay asturkeeda iyo xishoodkeeda iyo xishmadeeda ku faafinayso 5 waxaan leenahay markaa bulshada wixii kale ay uga baahato ay qaban karto ha qabato dumarku dhakhtar bay u baahan yihiin waa loo baahan yahay dumar dhakhtar ah dumarku waxbarashay u baahan yihiin waa loo baahan yahay cid waxbarta dumarku culumay u baahan yihiin waa loo baahan yahay dumar culamo noqda waxa laaliya bulshadu qayb dhan oo bulshada ka mid ah bay u baahantahay shaqada marka ay gabadhu qabanayso waa inay u qabataa shaqadeeba bulshadana u faa'iido badan aakhirana ku ajar badan ilaahay inaad wax kaga helaysa inaad xabad kombiyuutar samaysaa waxaa laga yaabaa inay ka ajar badnaato inaad dad daaweyso ama aad caruur waxbartid macallimaad noqotid waxaan leeyahay shaqada qofka gabadh ee muslimaday qabanaysaana waa inay fitradeeda mid waafaqsan ay tahay
fitrada ilaahay ku abuuray ilaahay rag iyo dumarka isku si uma abuurin walidaalika kuwiis dhinac ceriye wax kasta waxay dhahdeen maqaayis kala go'an ha loo sameeyo ay dhahdeen riyaaday u baahantay gabadhuna ha baratanto ninkuna ha baratamo haye maya laakiin la baratansi maya gabadhuna ha la baratanto ninkuna ha la baratamo dee mar haddaad baratan keentay ama wada baratansi ama qof waliba shaqadu qabanaya ha qabsado waxba ugama baahna waxaynu leenahay markaa haweenta muslimadda ah ee casrigan noole risaalo xoogan baa saaran waayo casrigani wuu ka fitna iyo imtixaan badan yahay cusurtii hore maanta adigoo aan dabadu bixin oo meelna tegin ayaa wiil maraykanka fadhiya ama london fadhiya gurigaaga waxa lagaga dhaqmo uu tawjiihiyaa la soo dhaaf iskuul iyo meel aynu dhahno dad baa lagu bari waxaas ma jiraan waxaa la rabaa gurigaaga siduu u eg yahay in london looga taliyo alaabtaad iibsanaysa london baa laga xayaysiiyaa guriga sida alaabta loo dhigdhigayo london baa lagaaga xayaysiiyaa TV-ga guriga la dhiganayo london baa lagaaga xayaysiiyaa gurigaaga waxa yaalla qaabku ogyahay haddaan guryaheena dib ugu noqonno dhammaanteen wiil yaroo london ama new york ama meel kala fadhiya ayaa design gareeyey siduu egyeennana waa ku raacnay waayo TV-gu ka soo baxay bale imika waxay maraysaa awal ummaduhu waxay lahaan jireen cunno kala gedisan oo dhadhana inay layna baro kijada sida wax loogu kariyo oo laynoo baro sida iyagu wax u karsanayeen marka imka reerku ka lacag badan yahay wuxuu rabaa qalabka guriga yaalla kijadu inuu ekaado kii galbeedka yaallay si loo samayn karo TV-ga waxa ka soo baxay wixii galbeedka lagu cuni jiray anu kama warramayo idinma lihi cunnadu inay cunno u ekaato xaaraan weeyaan idinma lihi laakiin waxaan idin tilmaamayaa sida la rabo in laynoo hogaamiyo aynan inagu waxba u yeelanin waxaad cunaysay waxaad huwanaysay waxaad guriga dhiganaysay si aad u noolaanaysay lifestyle-kaaga noloshaadoo dhan waxaa la rabaa in la hago aadnaad sidii neef xoolaad daba socotiduun design cusub baa soo baxay haye maxaynu samaynaa sariiraha ha la bedelo kabadhada ha la bedelona heblaayo adugu kuwii berigii hore dadku ka baxay baad haysataa hadda kuweeda waa iskaga seexataa bale kuma qabto laakiin waxaa laynaga tawjiihiyey TV-ga iyo intan bahalka ku jirta iyo nimankan baa mashtarkee waxooda shaqaysanaya waxaan rabnaa gabadha muslimadda inay identity-geeda yeelato ID-gu muxuu sheegaa kaadh yaroo ID sama wada haysataan ID-gu wuxuu sheegaa qofkaa tahay heblaayo hebel oo daadeedu intaa tahay oo wakhtigaa dhalatay oo magaalo heblaayo ku dhalatay oo nationality-ga leh intaasuu sheegaa waxaynu u baahannahay your islamic ID inuu kaa muuqdo ID-gaaga marka kor loo qaado inay ku qoranto heblaayo hebel oo ilaahay abuurtay oo addoon ilaahay oo aakhiro rajaynaysa inuu ka soo baxo taasi waxay u baahan tahay tale iyo fikir iyo qaab loo noolaado waxay u baahan tahay inaad yeelato shakhsiyaddaada inaan cid kale ku hagin ee adiga diintaada iyo ra'yigaagu inuu ku hago maxaad u baahan tahay inay ku hagto maxaa suuqa soo baxay maaha oo adigu maxaad u baahan tahay waxa laga yaabaa guryaheenna haddii lagu noqdo kabadhanoo bikeeriyaal ka buuxaanan weligiiba biyo lagu cabbin inaad aragto waayo stylkaa caynkana in inta halkaa lagu guro in inta halkaa lagu guro inta saa laydhaa waa gurigu designkii loo design gareeyaa nooca kana waxay ahayd adiga iyo materialka waxaa idinka dhexeeyaa inuu noqdo waxaad u baahantahy maxaad u baahantahy wixii aad u baahantahy gado wax kastaba ha noqdo waxaanad u baahnayn yaan lagu marsiinin iska dhaaf wixii dantaada kuu samaynaya technology-ga niman ka shaqaynaya waxay rabaan maalin walba wax cusub ay soo saaraan waayo waxaa la rabaa in maalin walba lacag la helo bahalkan yar horteyda yaalla waxaa laga yaabaa shaqadan u baahnay inuu qabto laakiin barraa TV-ga laga xayaysiinaya mid 200 gigabyte soo baxay oo bahalkiisu inta iyo caynka iyo markaas oo waa sheekhtay adigu kii hore seetay xabadka dambe aan ku siino xabadda ka dambe maxaan ku qabanaya anigu waxbaan qoraa karina waxay uu qoraa waxbaan qabtaa kani wuu qabtaa qofkii isweydiinaya war waxaan shaqadayda aniga way qabanayaa ee maxaan ku falayaa waxa kale idan waxaan leenahay gabadha muslimadda ay ha barato nolosha inay muqtasid noqoto inay nolosha waxay u baahan tahay ka qaadato inay nolosha isku rarin waxaan u
shaqaysay waxaa leeyahay necessity waxaa reerka u baahan wixii reerka u baahnaana waxaa mashquulkooda inuu ku dayacmaa laga yaaba carruurtii iyo dadkii aad korinlahay wixii aa u baahnaydee wakhtigiinna inay gelisaan waxaa laga yaabaa inuu wax dheeraada gelayo marka qodobka ugu dambeeya aan idin tilmaamaya waxaa weeyaan gabadha muslimadda waxaan ka rabnaa casriga nooli inay ID-geeda yeelato identitygeeda inay yeelato inaan meel kale looga talin ama TV ha ka warramo ama jaridad ha ka warramo ama jaamacad ha jooga ama wuxuu doonaa jooge qofka muslimka ahi inuu diintiisu waxay u sheegtay iyo ra'yigiisa iyo baahidiisa inuu ku dhaqmo waxaan u baahnahay waan gadan waan qaadan nolosha wixii aan uga baahnay wixii aanan u baahnayn waxba isku rari maayo qiimana ma samaynayso waxaan ku koobayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka dumar badan buu kaga warramay almar'a almuslima maanta nool waxay leenahay dowrkay nolosha ku leedahay waa kaa qur-aanku uu ka warramay doorkay ku lahaayeen ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramay gabadh fircoon qabay xaaskiisii oo iyadu muslimtay oo fircoon dadka wuxuu ku harowsaday baa ilaahay yidhi markuu muuse rabay inuu dadka kala hadho alaysa lii mulku misra wahadihi lanhaaru tajri min taxtii buu ku faanay war miyaydaan arkaynin boqortooyada masar oo dhan inaan leeyay iyo webiyadan hoosta dareeraya waxaan oo dhan inaan uga haysto iyana maxay ka doorbid rabbi ibni lii baytan fi ljanna wanajini min fircawna wacamalihi boqortooyadan iyo waxaan hoos yaalla iyo webiyadan dareeraya waxaan oo dhan ilaa adaan kaa doortay bay leedahay ee guri jannada iga dhis ilaahay subxaana wa tacaala gabadhaa wuxuu ka dhigay qur-aan la akhriyo ilaa qiyaami saaca waa maamuus in rabbi ku magacaabo oo ku sheego dhaqankaad samaysay oo ilaa qiyaami saaca muslimka nool la yidhaahda waxaad ku wardinaysaa imra'atu fircawn warkeedaad ku wardinaysaa ilaahay ugu dhowaanaysaa waa manzila sarraysa in qof dumara oo qarnigii fircoon noolaa la noolayd soo hadalqaadkeeda iyo qisadeeda ka sheekaynteedu ay noqoto wardi ilaahay loogu dhowaado qur-aan oo la akhriyo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa haweeney karaamaad intuu ka dhacay nebigii uu iyada ku dayday maryama bintu cimraan maryama ilaahay qur-aanka ka warramaya nebiyullaahi zakariya u soo galay dabeetana wuxuu weydiiyey markuu u soo galay galayba raashin buu ugu yimaada iyadoo haysata maryamay xaggaad raashinka ka keentay baa la yidhi waxay culammadu yidhaahdaan raashinka ugu imanayay muu ahayn raashin xataa qofku uu garan karo in suuqa cidi uga keento oo cidi siisay waayo bay yidhaahdeen raashinuu ku arkaya calaamadii wakhtiga baan lahayn yacni maalan midhaha beeraha midhahoodu qaarna qaboobuhu go'a qaarna kulayluhu go'a kulaylaha waxaa go'a maalan timirtoo kale timir qabooba go'daa ma jirto dee waagii horena dhul wax lagu kaydiyaa ma jirin haddaad qof winter joogo timir haysata u timaado aanad ogeyna timirun maaldhiga ama wixii soo go'i jiray midhihii jiilaalka soo go'i jiray aad ugu timaado qof xagaagii haysta waxaad garanaysaa inuu wax kale yahay waxa kale walidaalik ayuu wuxuu ku yidhi maryamay waxaan xaggaad ka keentay waxay ku jawaabtay in allaha yarsuqu man yashaau bikayri xisaab yacni waxay tilmaamaysaa gabadhan intay cibaadaysatay cibaadadeedii inay xad karaamo agaadhay intay cibaadaysatay ayay cibaadadeedii noqotay maxay ilaahay subxaana wa tacaala uu karaamo ka muujiyey karaamadeedii baa ilaahay qur-aanka ku qoray markaasaa weliba lagu qoray inay nebi dhan ku hunguraysay inuu isna ilaahay dib u baryo hunaalika dacaa zakariya rabba baa ilaahay leeyahy markuu arkay gabadhan ilaahay siduu u karaameeyey oo waxaan wakhtigeediiba hayniyaba ay helayso iyadoon shaqo tegin ay cunno helayso ayuu isna ilaahay baryey isagoo le ilaah waan gaboobay islaantiina waa gaboobday ubadna waan doonayaa isaga iyo xaaskiisiiba gaboobay ayuu barye ilaahay u dhaqaaqay ilaahay baa isna ilma siiyey idan waa qur-aan ilaa qiyaami saaca la akhrinayo qofkaa dumaray iyo camalkeedii ilaahay nooga warramayo tii ilmahay dhashay iyo kalsooniday ku qabtay iyo ilaahay siduu u difaacay waa qur-aan ilaahay ilaa qiyaami saaca ka warramayo ismaaciil iyo hooyadii iyo haajara iyo kacbada dhisideedii iyo waxa kan ilaahay islaantaasi halkay ororoday buu yidhi anaa laygu caabudayaa iyo sanadkii intaad mar tagto waa inaad soo ororodaa
asacyu bayna safa walmarwa waa islaan harraadanayd meel ay oroday socankaa ma aha laakiin waa qof dumar oo dhaqan ah inay kalsooni ilaahay ku qabtaa muujisay odaygeedii intuu lama degadejiyey uu iska dhaqaaqay ay tidhi ma ilaahay baa ku faray inaad cidladaygaga tagto uu ku yidhi haa iska tag bay ku tidhi haddaa ilaahay anigay dayici maaye haddii ilaahay baa amray bannaan cidlaa intaan fadhiisto inaan isaga sidaa ku caabudo iska tag bay ku tidhi meel aan bini aadam maki may ahayn meel bini aadam ku nooliyey qarbad yaroo biyo ah iyo qarbad yaroo timira sibraar ama qarbad ama wax dheh harag yaroo biyo ku jiraan iyo in timiri ku jirto uga tagay markiiba waa dhammaatay markay harraadayna halkaasay ororoday ilaahay baa ceelka ilaa maanta laga cabiyey zamzamka la yidhaahdo islaantan karaamo u siiyey waa karaamo qof dumar ah oo ilaahay ka cabsatay subxaana wa tacaala bal ilaahay baa wuxuu leeyahy ina safa walmarwata shacaa'ir ilaah baa ilaahay yidhi islaantaasi labada buurood ay dhex oroday waa shacaa'irta ilaahay subxaana wa tacala meesha bale waa ruknun min arkaan alxaj xaj idinka asixi maayo baa la yidhi islaantii harraadaneed halkay orodo inaad oroddo mooyaane idan risaaladaan idiin dhiibaya waxay tahay nebiye may ahayn dumarkan aan ka warramaya idinkamanay gedisanayn waa dad idgoodii aqbalay kumaan ahay bay aqbaleen inay gabadh muslimada tahay oo rabbigeed rumaysan tahay bay raacday wixii hareeraha lagaga akhrinayay may dhegaysanin wixii rabbi u sheegay intay ku dhaqantay ayaa ilaahayna karaameeyey oo sharfay oo weli ka dhig oo karaamaadkaasi ka dhaceen idan gabadha muslimadda waxaan leeyahay rabbigaa caabud ku xidhnow idgaagaas sido bulshada waxaad u qabataana waxaa sharcigu kuu baneeyey ha noqoto sala allahuma calaa nabiyi muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin